waxaa la yaab noqotay ciidamadii Eritrea oo la sheegay in ay dareyskii iska dhigeen oo haatan ay isku ekeysiyeen baa layidhi maleeshiyaadkii caanfarta ayaa waxa ay ka weerar tegeen dhinaca Abala ee markaa xadka ay wadaagaan caanfarta iyo markaa Tigreego ciidamada hadaba Eritrea xaggee bay ka yimaadeen waa kuwii aynu barnaamijyo hore ku sheegnay ee la sheegay inay ka soo galeen dhinaca Birhale xadka ay wadaagaan caanfarta iyo Eritrea marka ciidamadii Eritreanka dareyskii haatan way iska dhigeen baa layidhi waxaana iska dhigeen markaasi maleeshiyaadkii caanfarta si aanay markaasi isha u qabanin ama faarta aanay u soo saarin beesha caalamka oo aan isha lagu qaban oo la oran Eritrea gudaha Ethiopia ka dagaalamaysa ayaa haatan waxa la sheegayaa shax cusub inay la soo baxeen Eritreanku taasoo gabi ahaanba iska saareen dareyskii maleeshiyaadkii caanfarta ayaa haatan dhinac ka galeen waxaana la sheegayaa badi in ciidamadii Eritrea iska dhigeen maleeshiyad caanfara haddaba waxaa la sheegayaa haatan in magaalada Abala ay dhaafeen maleeshiyadka huwanta ah ee ciidamada Eritrea iyo qaar caanfara iskugu jira oo 40 kiiloomitir oo kaliya ay u jiraan magaalada Maqale wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan haatan ciidamadii TPLF ee ka dagaalamaysay dhinaca xadka u dhaxeeya caanfar iyo Tigray in haatan cagta la mariyay baa layidhi waxaanay ku sii siqayaan ciidamada huwanta ah ee caanfarta iyo ka kooban kuwa Eritrea in markaa ay 40 kiiloomitir oo kaliya ay haatan u jiraan baa layidhi magaalada Maqale waa sida warbaahinta taageerta dawladda hadalka u dhigayaan dhinaca kale waxaa haatan la sheegayaa in iyadana TPLF ay ku soo waramaysaa inay guulo waaweyn ka soo hooyeen dagaalada haatan socda iyaga oo haatan sheegay inay qabsadeen duleedka magaalada Waldiya oo markaa dagaalo xooggan halka ka dhacay ay cagta mariyeen ciidankii Ethiopia sidoo kale waxay sheeganayaan in dhinaca Waaghimra ay dib markaasi u qabsadeen magaalada Sikota oo laga saaray sidoo kale waxaa haatan la sheegayaa markaa dagaaladu in ay dhinaca qowmiyadda Axmaarada ee Wallo markaa ay TPLF haatan ay guulo badan ka sheeganayso laakiin si gudihii baa loogu dhacay TPLF runta marka la sheegayo gobolkoogii ay haatan ka dhex bilaabantay oo gudaha loo galay dagaaladuna gudaha Tigreega ayay ka socdaan iyaguna haatan xoogga ayay haatan waxay muujinayaan saarayaan dhinaca qowmiyadda Axmaarada laakiin se haddii saldhigyadoodii iyo markaasi xarumahoogii haatan 40 kiiloomitir kaliya loo jiro taa macnaheedu waxay tahay bari ka maalin laga yaabaa in la qabsado markaasi magaalada Maqale oo moogtay sida ciidamadan Eritrea aad ay u hubaysan yihiin baa layidhi moogtahay cadayna Eritrea kuma hayaan beesha caalamku badle dareyskii bay dhigteen oo waxay isku ekeysiyeen maleeshiyaad barkii kalena waxay isku ekeysiyeen markaasi ciidamadii Ethiopia dareyskii bay la xidheen baa layidhi waa kuwa dhinaca Eritrea ka soo dagaalka galay baa layidhi shiraha tan duleedkiisa ku dagaalamaya marka waxa haatan arintu u eg tahay in TPLF ay arinku aad ugu xun yahay sidaa darteed waxay markaa iyaguna dhaqdhaqaaq ay muujinayaan oo dhinacan moogtay Axmaarada ee Waldiye iyo dhulkan ayay sheeganayaan haatan guula ka gaadheen laakiinse badi ciidankii dib baa loo soo celiyay baa moogtay la sheegayaa ka dagaalamaya dhinaca Furimaha Axmaarada oo haatan difaacida gobolada Tigreega iyo markaasi xarumahoogii ay doonayaan inay difaacdaan baa la leeyahay mar haddii saldhigyadaadii iyo xarumihii aad ka soo dagaal tegaysay lagu daba marana dee way iska caddahay xitaa qofka aan khibrad u lahayn arrimaha militarigu wuu fahmi karaa in ciidankaasi markaasi awoodoodii la daciifiyey amaba dee dhabarjabin lagu sameeyey